السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. سود هذا مركلة iyo xalaqo kale iyo Baghdad Online Academy waxaan ka cudur daaranaynaa kala go'i ku yimid xalaqaadkii isbuuclaha ahaa ee aad nagala socoteen page-keena Facebook-ga iyo page-keena YouTube-ka raalli ahaada xal adduunya mashquul adduunya iyo muxuu ahaaye waa samayn doonaa iyo tookada dambe sixi doonaa unbay ku timid. الحمد لله إن صلى الله عليه وندب باللوني أي إلهي سبحانه وتعالى ونقوم هذا علينا إن شاء الله تعالى وحن كد ذلك دونا إني سن مركل دعين إن كلا جو يماذو حلقوين كين السدي أن قلت رجلني مدة دير أن كسو ودني إن شاء الله تعالى أن قوتنا سود هذا حلقة دينا إن شاء الله تعالى وحي بالله ونقول دونتا حلقوين استوجوج أو أن قلت رجلني ardada Soomaaliyeed ee ka soo qalin jibinaysa ama ka soo qalin jibisay dugsiyada sare isu diyaarinayaan insha Allah taala inay jaamacadihii ku biiraan haday dalka tahay iyo haday dibadda tahayba. Ardadayna qiimaha ay qaayaha badan marka hore waxaan idin leeyahay hambalyo alf mabruuk. Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa ku mahadsan idin soo gaarsiiyay guushan muddada dheer aad rajaynayseen inaad u dabaaldegtaan. aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dabaaldega idin kala qayb qaadano hambalyada idin la wadaagno insha Allah taala. waxaan rajaynayaa in aad mustaqbalkiini wax badan aad ka bedeli doontaan taariikh diini qayb weyn oo qurux badan oo baal dahab ay noqon doonto. dadaalkii faraha badnaa ee aad ku soo bixiseen waxbarashadiini dugsiga hoose dhexe sare alxamdulillah dad badan ama wiilal badan iyo gabdho badan oo dugsiga hoose dhexe soo maray ayaan dugsiga sare soo gaarin. in badan oo dugsiga sare soo gaaray ayaan hadana dugsiga sare aanan dhameynin oo qalin jibinin. marka inuu ilaahay idin waafajiyay inaad soo qaadateen dadaalkaas dheer jaranjarada aadka u sareysa aad soo fuusheen oo u dabaaldegtaan waxa weeyaan runtii wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala looga mahad celiyo. aadayna muhiim u tahay inaad nimcadaas qaaliga ah xasuusataan Ilaahayna ugu mahad celisaan idinka iyo waalidiintiina iyo annagoo dhanba inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahad celino ayaa loo baahan yahay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay in shakartum la azidannakum wala in kafartum in عذابي لشديد. haddii aad igu shukrisaan waa idin ziyaadinaya waa idin kordhinaya waa idin badinaya. haddii aad ku kufrisaan nimcadayda oo aad ku shukrin weysaan cadaabkayga waa daran yahay buu leeyahay subhanahu wa ta'ala. cadaabkan ayaanan u fahmin oo kaliya aakhira in la tagayo oo ciqaab la isgelinayo oo dab la isku gubaayo. cadaabku waa fara badan yahay noocyo fara badan weeyaan. waxaaba kamid ah oo qayb ka noqon karto boqolkiiba boqol dhihi mayne inaadan horay u soconin halka aad ku danto oo muxuu ahaayay dadaalkii aad soo bilowday oo ku dhamaaday dugsiga sare lafteedii ayaa waxay noqon kartaa qayb ka mid ah cadaabkii oo nimcadii aad ku shukrin weysay sababteedana noqday. waxaan aad ugu faraxsanahay in sanadkan 2021 ku dhawaad 40,000 oo arday oo Soomaali ah ay ka qalin jibiyaan Soomaaliya kali ah. Soomaalida kale iyo deegaanada kale aanan ku jirin runtii waxay ka dhigan tahay in aan kobac badan wadno inaan horay u dhaqaaqnay inaan u jeesanay aqoontii cilmiga inaan u jeesanay inaan dunida ka daba tagno
waalidiintii ardadoo gabdhahooda iyo wiilashooda dhiirigeliyey gacanta ku siiyey runtii aad ay u mahadsan yihiin kaalinta ay ka qaateen juhdiga ay bixiyeen dhaqaalaha ay bixiyeen talooyinka ay bixiyeen har iyo habeen ay u dhafreen iyagana waxay mudan yihiin in looga mahad celiyo dadaalkaasna in lasii laban laabo ayaa runtii loo baahan yahay dunidu waxay ku kala tegtay oy ku kala horumartay waa aqoon iyo cilmi aqoontii cilmiga dunida ay ku kala horumartay inaan anagana dadaalkeeni gelino oon dunidaas inta naga horeysana ka hortagno inta naga dambaysana aysan na soo gaarin inbaa naga dambayse soomaalida waxaan iska aaminsanahay inaan aniga dunida u dambayno dad badan baa dunida naga dambeeyo maanta qofka soomaaliga teknolojiyadda meeshuu ka maraya wadamo fara badan oo afrikaan aasiyaan ah ayaanan weli soo gaarin marka inaan dadaalkeena sii kordhino aan wiilasheena wax barno gabdhaheena wax barno runtii aaday muhiim u tahay waxaan aada ugu faraxsanahay sidoo kale inaan halkan ka mahad celiyana jeclahay in gabdhaheena soomaaliyeed waxbarashadii ay dadaal dheeraad inay u bixiyaan bilaaween waalidiintii inay fahmeen inay gabdhaha la dhiirigeliyo iyo muhiimadda ay leedahay waalidiinta ay fahmeen in gabdhaha mas-uuliyadda ka saaran ay la mid tahay midda wiilasha ka saaran cilmigii aqoontana loo siman yahay qof walbana ilaahay subxaanahu watacaala uu ka rabo inuu barto waajibaadkiisa iyo cilmigii aqoonta looga baahan yahay طلب العلم فريضة على كل مسلم قف والبو مسلم أيا علمي إنه دلباء واجب كتاي مسلم مركي ليرهدنا الذكر والأنثى رجل الدمر بواسوق ليا مركي واجب كاسي إن تجودته أديكو والد أديكو ولالة أديكو أهلي أصحابي قرابة كنت وحويا نقول أدو قيمة بدن إلهي سبحانه وتعالى هنقول لي ودمانتين آد أيا نقول فرحسنا بقول كي صدني سديت أيا لقول شيء إني سو قارين tirada gabdhaha ah ee dugsiyada sare ka qalin jabiyay sanadkan 38% aad bay u sareysaa runtii markii loo fiiriyo meeshan ka nimid waana soconnaa gabdhaheena inay ka badan doonaan wiilashan aaminsanahay dadaalka gabdhaha ku jiro iyo waqtiga iyo fikirka ay gabdhaha geliyaan aqoontii cilmiga waxaan shaki ku jirin inay hore u socon doonaan weli ma hayno tira koob sax ah oo ku aadan gabdhaha ka qalin jabiyay jaamacadaha laakiin dugsiyada sare waa lahayd 38% xisaab aad u fiican oo runtii lagu farxa ayay ka dhigan tahay muxuu ahaa halku dhagidii hore ee Soomaalida ay lahayd oo dhintay oo in laga guuro mudnaa in laga guurayaan ay muuqato waxa kamid ah gabar ama guri ha joogto ama god yani gabar ama hal qabo guri ha joogto ama god ha gasho gabar guuray u joogtaa dabcan ilaahay subxaanahu wa tacaala sunnadiisa ka mid tahay guurkii rag iyo dumarka oo dhan baa u wada joogo waa saxo gabadha way guursan doontaa laakiin in si qaldan loo isticmaalo la yiraahdo gabar waxbarasho shaqo kuma lahan waa inay guriga joogtaa markay xoogaa weynaatana waa in guri kale la geeyaa oo iyada ilmo ku dhashaa cilmi aqoon shaqo kuma lahan in la yiraahdo waxa weeyaan wax aad u qaab daran alxamdulilah halku dheg ka fiican ka qurxoon ayaa la sameeyey gabar wax baratay waa bulsho wax baratay ayaa loo bedelay marka halku dhigaasna aadan ugu faraxsanahay inaan kaas xoojinaa loo baahan yahay xaqiiqada dhabta ah ee jirtana waa sidaas gabar wax baratay waa bulsho wax baratay ilmaheeday tarbiyeynaysaa gurigeedii oo dhanba dadka jooga oo ehel iyo qaraabi iyo asxaab bay tarbiyeynaysaa waxay ka dhigaysaa guriga guri cilmi guri aqooneed ilmaheedii bay garan kartaa oo qiimeyn kartaa xaaladooda aqooneed intay gaarsiisan tahay iyo dadaalkooda intuu la egyahay marka hooyada ayaa ah qofka wax walba oo reerkeedii ka warqabi karto aabaha dadaal buu ku jiraa shaqo jiraa hawl buu ku jiraa waxa laga yaabaa inuusan waqti badan u helin ilmihii iyo waxbarashadoodii ka warqabkoodii runtii hooyadii ilmaheedii bay wax taraysaa bulshadii kale bay wax taraysaa ummadii kale bay wax baraysaa cilmigeedii iyadana waa anfacayaa reerkeedii waa anfacayaa bulshadii waa anfacayaa marka sidaa darteeda waxaa loo yidhi hooyo wax baratay waa bulsho wax baratay ama gabar wax baratay waa bulsho wax baratay marka gabadheenana waxaan leeyahay hambalyo horey ha loo socdo waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad jaamacadahan wiilasha ugu badataan cilmiga aqoonta aad siyaasataan meel walbo laydinkaga baahan yahay aad buuxin kartaan in badan oo badan baad ummadda kusoo kordhin kartaan iyaanan la idin ciilin kamana dhigno markaan leenahay sidaas inaan leenahay gabdhaha xadka ka baxa waalidka amarkiisa diida keligiin amar taagleeya sida reer galbeedka camal u dhaqma maya adigoo ilaalinaya waajibaadkaada waalidkaada u baarinama falaya diintaada ilaashanaya xuquuqdaada iyo akhlaaqdaada ilaashanaya haddana ku dadaal inaad cilmi aqoon samaysatid oo kororsatid bulshadaadana aad wax tartid xalaqadeennan waxay bilaaw u ahayd
xalaqooyin isdaba jooga insha allahu tacaala oon ugu hadli doono ardayga dugsiga sare soo dhameeyey sidee buu u dooran karaa takhasuskiisii jaamacadeed kulliyadiisii jaamacadeed uu ku biiri lahaa insha allahu tacaala tala bixinaan ka samayn doona hadduu ilahi ihahdo maadaama tajrubo aan soo marnay wax badan aan ka fahmi karna ay tahay inaan bulshadeena ugu faa'iideyno dhallinyaradeena ugu faa'iideyno wiilasheena gabdhaheena insha allahu tacaala ay fursad u noqotaan rajaynaynaa xalaqadeena koowaad waa iga mahad celin waa iga soo dhoweyn insha allahu tacaala hadduu ilahi ihahdo xalaqada kale ayaan u gudageli doonaa barnaamijkeenii ku saabsanaa sideed u dooran kartaa takhasuskaada intaan xalaqadaas ku kulmi doono intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa aadaad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا